من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. maanta waxaan bilaabaynaa kitaabkii ahaa hidaayat lmustafiid fi cilmi tajwiid. kitaabkan aynoo soo bandhigi doono si cilmiyeysan oo fudud oo qof kasta oo maxay toolay doonaya inuu barto tajwiidka uu ku fahmi karo. ka hor intaynaan darsiga bilaaban waxaan kaa codsanaynaa walaal inaad subscribe siisid channelkan haddaad ku cusub tahay, siina sheergaraysid si uu sii gaadho walaalo badan oo u baahan cilmigan asaga ah inay bartaan. sidaa darteed waana fadli iyo maxaad ku helaysaa maxay toolay ajar insha allah adoo niyeysanaya. muqadima waa bilowgii weeyaan, hordhacii kitaabka iyo gogoldhigii kitaabka insha allah. wuxuu yidhi su-aal. siin haddaad aragtid waxay ka dhigan tahay su-aal bay ka dhigan tahay, waa su-aal. maa xaqiiqatu tajwiidi? maa xaqiiqatu maxay tahay dhabnimada atajwiidi? tajwiidka dhabnimadiisu maxay tahay? xaqiiqada tajwiidku maxay tahay ama dhabnimada tajwiidku maxay tahay? luuqatan luuq ahaan maxay ku tahay? luuqadda carabeed baa loo jeedaa. waistilaaxan eray bixinna maxay ku tahay? luuqa ahaan waxa weeyaan dadka luuqa alcarabiya ku hadla maxay u yaqaanaan xaqiiqada tajwiidka. istilaax ahaana culimada tajwiidka dhiga ee culamaa ulqiraa'aat ee quraada ah ee cilmi qiraa'aat dhiga ayagona istilaax ahaan ama erey bixin maxay u yaqaanaan tajwiid. maa xaqiiqatu tajwiidi? tajwiidka dhab ahaantiisu muxuu yahay luuqatan luuq ahaan, waistilaaxan iyo erey bixin muxuu ku noqonayaa? jiim jawaab. atajwiidu tajwiidku luuqatan luuq ahaan wuxuu ku noqonayaa al-ityaanu layimaatin lala yimaado biljayidi wax fiican. luuq ahaan wuxuu ku noqonayaa al-ityaanu in lala yimaado biljayidi wax fiican. luuqadda carbeed waxaynu ku sheegnay inuu ku noqonayo tajwiidku inuu lala yimaado wax fiican, haday tahay hadal, haday tahay dhawaaqitaanka luuqadda carbeed si fiican loogu hadlo. marka waa sidaas. waistilaaxanna waxay ku noqonaysaa erey bixin ay culamaa qiraa'a u yaqaanaan ama cilmun cilmi yucrafu lagu baranayo bihi asaga ictaa'u in la siiyo kulla xarfin xaraf kasta in la siiyo xaqahu xaqiisa in la siiyo iyo wa mustaxaqahu wuxuu mutaystay ee min asifaati sifooyinka ka ahaaday. sifa waxay noqonaysaa shay kastaaba sifa lagu gartuu leeyahay, sifadiisa in la siiyo. iminka saad iyo siin waana isku dhadhow yihiin, haddana sifadii kala tegeen. markaas shayka xaraf kastaba in la siiyo sifadii uu lagu yaqaanay oo u gaarka ahayd. iyo walmuduudi mad hadduu leeyahay xarafka in la mado, intaaba in la siiyo weeyaan tajwiidku. cilmigaas baa lagu baranayaa. iyo wagayri daalika iyo kuwa la mid ah. ka tarqiiqi in la jilciyo oo la yareeyo xarafkii hadduu yar yahay ama meeshii uu la yareynayay marka la marayo in la yareeyo oo la jilciyo. ka tarqiiqi in la yareeyo oo la jilciyo. iyo watafkhiimi in la cayiliyo ama la buuro marka la marayo makaankii lagu buurayay. iyo wanaxwihimaa iyo wax la mid ah ayagoo kale ah
in la siiyo xarafku markaa uu yeesho sifooyinkaas noocaas oo kale ah. hadduu doonayo mad uu yeesho madkiisa la siiyo, haddii in la jilciyo oo la yareeyo uu doonayo in la yareeyo weeyaan, haddii la buurayna in la buuriyo weeyaan, wanaxwi maa lamid ah. waistilaaxan waxa u yaqaanaan culimmadu istilaaxahaan culamaa ulqiraa weeyaane cilmun cilmi yucraf lagu garanayo bihi isaga ictaaw in la siiyo kulli xarfin xaraf kastaba xaqahu xaqiisa la siiyo iyo mustaxaqahu wux mutaystay cafwan min asifaati hadduu sifa tahay iyo walmuduudi hadday mudud tahay in la siiyo iyo gayri dalika wixii lamid ah ka tarqiiqi in la yareeyo hadday tahay iyo tafkhiimi in la cayiliyo ama la buuro ay tahay iyo wanaxwi dalika wanaxwihima iyo wixii lamid ah. su-aal maa gaayatu cilmi tajwiidi maxay tahay yoolka ama targetka cilmiga tajwiidka barashadiisu maxay tahay? maxaa looga jeedaa in la barto cilmiga tajwiidka barashadiisa? maa gaayatu maxay tahay yoolka loola jeedaa cilmi tajwiidi cilmiga tajwiidka barashadiisu? gaayo waxay noqonaysaa taarget, ujeedo, maqsad. maxaa loola jeedaa in la barto? maxaa laga helayaa barashadiisa? maxaa faa'iide ku jira in la barto? jawaabtu waxay tahay gaayatuhu ujeedadiisu waxa weeyaan ama targetkiisu waxa weeyaan ama yoolkiisu waxay noqonaysaa buluuqu nihaayati in laga gaadho halkii ugu dambeysay fii itqaani wanaajinta la wanaajinayo lafdil qur'aani dhawaaqa qur'aanka. wanaajinta la wanaajinayo in laga gaadho heerkii ugu dambeysay in laga gaadho weeyaan. calaama sidii oo kale tulaqiya lagala kulmay min xadrati nabawiyati qolihii nebiga sala allahu alay salam alafsaxiyati faseex ahayd qaabkii loogala kulmay oo kale in loogu akhriyo ama loo wanaajiyo qaabkii ay ahayd loo hagaajiyey xilligii nebiga sala allahu alay wasalam. gaayatuhu ujeedadiisu waxa weyaan buluuqu nihaayati in la gaadho halka ugu dambeysa laga gaadho fii itqaani wanaajinta la wanaajinayo lafdil qur'aani lafdiga qur'aanka ama dhawaaqa qur'aanka weeyaan. calaamaa sidii oo kale tulaqiya lagala kulmay min xadrati nabawiyati qolihii nebiga sala alla alay slam sidii lagala kulmay in loo akhriyo alafsaxiyati faseexa ahayd. waqiila waxa kale la yidhi gaayatuhu cilmigan barashadiisu waxa weyaan ama yoolkiisu ama targetkiisu waxa weeyaan baa la yidhi sawnu lisaani carabka in laga ilaaliyo can ilkhata'i in lagu gafo ama lagu dhacdhaco fii kitaabi illaahi tacaala kitaabka ilaahay sarreeya subxaana wa tacaala kitaabkiisa in lagu dhacdhaco oo khalad lagu akhriyo. waayahay waqiila waxaa la yidhi gaayatuhu ujeedadiisu waxa weeyaan sawnu lisaani carabka oo laga ilaaliyo can ilkhata'i gafka fii kitaabi illaahi tacaala kitaabka ilaahay ee sarreeya. waqiila waxaa la yidhi gaayatuhu ujeedadiisu waxa weeyaan sawnu lisaani carabka in laga ilaaliyo can ilkhata'i gafka fii kitaabi illaahi tacaala kitaabka ilaahay ee sarreeya. okay maa xukmu ashaaricu muxuu sharcigu ka qabaa barashada la baranayo fii cilmi tajwiidi cilmigan tajwiidka? maxaa ujeedada sharcigu xukunka muxuu ku yeelanaya barashada in la barto cilmigan tajwiidka? su-aal maa xukmu shaaric xukunkiisu muxuu yahay fii cilmi tajwiidi cilmigan tajwiidka barashada la baranayo? jawaabtu waxa weeyaan jiimku waa jiim jawaab bay ka dhigan tahay التجويد تجويدك لا خلاف كما دحي تالو في أنه إنو يهي فرض الكفاية إنو يهي وح خلاف أو كتشيرة مجرته حتى بو العمل به إن لغو دقمو أو إن تجويدك لغو دقمو فرض عين وفرض عين يكو تاي على كل مسلم كستي كو تاي iyo muslimatin gabadh kastoo muslimada oo min almukalifiina dadka la kalifay ah ee qaan gaadhay ee camalkooda saalixa iyo camalkooda sayiidka bal qorayo ee 15 jirka gaadhay
التجويد تجويدك لا خلاف وخلاف كجرا مجرو في أنه إنو يهي فرض يهي فرض كفاية شكك مجرو والعمل به إن لو عمل فلانا فرض عين وفرض عين على كل مسلم كستا كؤه فرض عين كؤه يو مسلمة هويني كستا مسلمة ومن المكلفين ددك مكلفين تاه حدبا فرض الكفاية ومحي فرض الكفاية وحويان والشيء إلهي سبحانه وتعالى إن أمري وشرعنا إن نسمينا إن أمري وأن العيمين إدي قبنيسي aan la cayimin oo hadday dadku barhkood ay qabtaanna ay ka gudayso haddii ay dadku wada qaban waayaanna ay iska daayaanna ay ku dambaabayaan oo ay aasimiin ku noqonayaan tusaale ahaan mar labadan ku celiyo fardul kifaayo waxa weeyaan faral uu ilaahayna amray sharciguna ina amray oo cid gaara aan loogu cayimin ama cid gaara aan lagu magacaabin inay qabtaan ee dadka oo dhan inay qabtaan un ah haddii ay dadku barhkood qabtaanna ka wada gudaysa oo ay ka dhacayso haddaba qur-aanka inaad marka hore intaanad qur-aanka baranin adigoon qur-aanka baranin oon xifdiyin inaad tidhaahdid tajwiidkaan baranaya oo intaanan qur-aanka bilaabin baa tajwiidkaan baranaya markaa fardulkifaayo kugu noqonaya laakiin marka aad walcamalu bih markaas tidhahdid haddaba kitaabka soo qaado ee akhri oo yacni aayaadkii iyo suuradii akhri muxuu noqonayaa fardu cayn buu ku noqonayaa calaa kulli muslimin gabadh kastoo muslimada calaa kulli muslimin nin kasta oo muslima haddaan idhi marka hore cafan raalihaada muslimad haddaan halkaa ku sheegay iga raali noqda waxaan u jeeday calaa kulli muslimin muslim kasta iyo muslimatin haweeney kastoo muslimada oo min almukalifiina dadka mukalifiinta ka mid ah fardu caynkuna waxa weeyaan waa wax ilaahayna amray subxaana wa tacaala oo qof walba la amray oo loo cayimay tusaalahaan salaada waa fardu cayn waxay ku waajib tahay qof kasta oo muslima oo baaliga oo maxay toolay miir qaba oon waalnayn waa ku waajib marka maxaad ka garanaa fardigaas waa fardi la cayimay ciddii qabanaysay fardu caynna fardul kifaayana waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ina amray oo aan la cayimin ciddii qabanaysay haddii dadku ka wada tagaana ku dambaabayaan haddii dadku barhkood ay qabtaanna ay ka wada dhacayso fardu caynkuna waxa weeyaan waa shay qof walba laga rabo nin gabadh maxay tole qof weyn yacni cid kasta oo qaangaadhay laga rabo sida salaado kale fardu kifaayahana waxa weeyaan sida maaragtay salaadan loo yaqaano salaatul kusuuf oo kale ama salaada marka qoraxda madoobato la tukado haddii ay badh ka mid a dadka muslimiinta ay tukadaan way ka wada dhacaysaa hadday yidhahdaan tukan mayno way ku dambaabayaan waxaa ka mid ah qofka muslimkaa salaada lagu tukado janaasada loo yaqaano haddii lagu wada tukan waayo qof muslim oo dhintay waa lagu dambaabayaa haddii laakiin qof ka mid a ay ku tukado ama saddex ka mid ay ku tukadaan dembigaasi wuu ka dhacayaa insha allahu tacaala darsigaasin ku joojinaynaa mar labaad walaalayaal insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa inaad sii sheergaraysaan siina gaadhsiisaan walaalihiina kale biidni illaahi tacaala